inkastoo ay soo hindiseen wadahadallada Mareykanka iyo Daalibaan u dhaxeeyay dowladaha Qatar iyo Pakistan, waxaa haddana durba caddaatay sida ay Daalibaan isu furfureen nidaam ahaan 20 sano ka hor sidii ahaan jireen. Khadka cas waxaa Daalibaan mar kasta agtooda ka ahaa arrimaha xuquuqda haweenka sida waxbarashada iyo shaqooyinka. Waxaa sidoo kale agtooda khadka cas ka ahaa in la wada fariiso oo lala hadlo Mareykanka ama wadamada kale ee reer galbeedka. Dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo badan haatan waxay u muuqdaan inay soo afjarmeen oo ay Daalibaan u tanaasuleen sidii ay xukunka dalka Afghanistan u heli lahaayeen. Haddaba Daalibaan waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay doonayso inay ku dhaqdo dowladda soo socota ee Afghanistan ay yeelanayso iyo sida ay u ekaan doonto. Qadiyadaha adag ee haatan ku ah tijaabada reer galbeedkana ay dhaheen waanu ku tijaabinaynaa Daalibaan waxa ay ku xiran yihiin hadba sida ay u dhaqmaan Daalibaan. Hogaamiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta Afghanistan Cabdallah madaxweynihii hore Afghanistan Xamid Karzai iyo madaxda sarsare ee Daalibaan wadahadallo ay yeesheen waxa ay ku heshiiyeen in lagu soo daro dowladda soo socota dhammaan madaxdii iyo saraakiishii dowladdii hore ee Afghanistan. Hogaamiyaha sare ee dalka Afghanistan ayaa sidoo kale doonaya in dalka Afghanistan loo furfuro dalalka dariska ah isla mar ahaantaasna heshiis lala galo. Daalibaan ayaa horey ugu cafisay dhammaan shaqaalihii iyo madaxdii hore ee dowladdii Afghanistan. Waxa ay ballan qaaday inaysan u ogolaaneyn Afghanistan meel laga soo weeraro caalamka kale gaar ahaan Mareykanka. Waxaana ay caddeeyeen inaysan dib dambe gabaad u siinayn kooxo ay wadamada reer galbeedka si aad u doonayaan. Waana qodobka saldhigga u ahaa dagaalkii Mareykanka uu ku qaaday Afghanistan 20 sano kadib qaraxyadii daarihii Mareykanka. Dadaalada uu wada hogaamiyaha siyaasadda isla markaasna ka mid ahaa raggii dhidibada u taagay jabhadda Daalibaan Mullah Cabdiqani Baradar ayaa wada dadaallo iyo wada hadallo ku saabsan yagleelidda dowladda loo dhan yahay. Waxaana uu la kulmay odayaal dhaqameedyo Afghanistan. Waxa uu kala hadlay samaynta dowlad ay Afghanistan ay leedahay oo loo dhan yahay. Waxa uu kula kulmay magaalada Qandahar halkaasi oo ah meeshii ay ka curatay jabhadda Daalibaan. Qodobada uu soo bandhigay Mullah Cabdiqani Baradar waxaa ka mid ah in dalka Afghanistan ay maamuli doonaan gole sare oo ay ku jiraan siyaasiyiintii hore ee dalka awooddaasi ay yeelan doonaan dhaqaaqa Daalibaan. Madaxa golaha sare ayaa noqon doona hogaamiyaha haatan ee kooxda Daalibaan Hibatullah Akhundzada isla mar ahaantaasna wuxuu noqon doonaa madaxweynaha Afghanistan. Xukunka ay doonayaan Daalibaan ayaan ahayn mid ay ku doonayaan nidaam dimuqraadiyadeed. taas beddelkeeda waxa uu noqonayaa mid waafaqsan nidaamka shareecada Islaamka. Awoodda ciidamada ayaa la dhisayaa waxaa ka mid noqonaya ciidamada kooxda Daalibaan ee Islaamiga ah. Ciidamada ay dhiseen NATO iyo Mareykanka muddadii ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan iyo saraakiishii iyo bayloodiyadii rugcadaaga ahaa ee horey ugu soo shaqeeyay Afghanistan. Kaalinta haweenka ee dhinaca maamulka ayay kooxda Daalibaan sheegeen in ay jirayso iyada oo loo ogolaan doono meelo mucayin ah oo ay maamulaan, balse marka hore ay go'aamin doonaan culimada diinta hoggaanka ay qaban karaan dumarka. Sidoo kale golaha culimada waxa ay go'aamin doonaan dharka ay xiranayaan haweenka Afghanistan, waxbarashada iyo shaqada. Dhammaan qodobadaasi oo ah kuwo si gooni ah ay u xiiseynayaan wadamada reer galbeedka waxay noqon doonaan kuwo soo jiita hadba sida ay Daalibaan u fuliso qawaanintaas iyo shuruucdaasi. Waxaa jira kulamo xaaladaha Afghanistan ay ka yeelan doonaan wadamada ka midka ah isbahaysiga NATO, midowda Yurub, kooxda G7 iyo dowladda Britain. Waxaa lagu gorfayn doonaa dadaaladii dhawaanahan ka socday dalka Afghanistan iyo sidii ay u wajihi lahaayeen isla mar ahaantaasna ay go'aan midaysan uga qaadan lahaayeen dowladda ay hormuudka u noqon doonto kooxda Daalibaan.